$20,000 ayuu ku bixiyey sidii loo dili lahaa Chief Keef xarunta tuugada. Inaad boqoto waxaa shuruud ah inaad iyaga ka tirsan tahay. Waa fanaanka ay dooda ka taagan tahay noloshiisa. $20,000 ayuu ku bixiyey sidii loo dili lahaa Chief Keef xarunta tuugada. Inaad boqoto waxaa shuruud ah inaad iyaga ka tirsan tahay. Magaciisu waa Takashi Hernandez, naanastiisuna waa 69. Waa fanaanka kaliya cadawgiisa ku abuurtay gacmihiisa. Sidee ayuu ku noqday basaas? Halkan ayaanu ka bilaabaynaa. Wuxuu dhashay 1996. Takashi Hernandez aabihiis wuxuu ka tegay isagoo aad u da'yar. Waxay hooyadii la timid nin kale kaasoo u geli doona booska aabihiis. Takashi nasiibkiis wuxuu ahaa mid aad u wacan, wuxuuna u noqday adeer u gala booska aabihiis. waxaa jira wiil la dhashay balse aan la nooleen familka. nolosha qoyskan waxay ahayd mid aad u hooseysa. waxay noloshu isbedeshay 10 sano kadib. waxaa guriga lagu dhex dilay adeerkii soo koriyey Takashi Hernandez. dilka adeerkiis waxaa looga shakisan yahay wiilkii ka weynaa, balse ma cadda. halka geerida adeerkiis ay ku sababtay inuu koomo u galo hospitalna loo seexiyo, waana mid ka liftay inuu iskuulkiisa dib uga dhaco. wuxuu iskuulka uga haray galaaska 8aad. nolosha qoyskase way sii xumaatay maadaama hooyadii aysan hayn dhaqaale ay ku samata bixiso qoyskan. waxaa saameyn ku yeeshay Takashi hadal u yiri walaalkii, haddii aad doonayso lacag waa inaad u soo istaagtid wadadeeda. wuxuuna bilaabay Takashi inuu ka shaqeeyo maqaayadaha, balse muddo gaaban kadib waa laga soo buriyey. wuxuuna u hayaamay una guuray meesha uu joogay walaalkii, isaga oo bilaabay inuu ka caawiyo sidii loo gadayo daroogada. wuxuuna gadi jiray xashiishka. waxaa lagu qabtay isla xashiishkii, waxaana lagu xukumay maadaama 18 uu ka yaraa 5 maalin inuu xaaqo qashimada magaalooyinka iyo laamiyaasha. halkaas kuma uusan joogsan. wuxuu u bilaabay sida uu u horumarin lahaa ganacsiga daroogadiisa. wuxuu bilaabay inuu gado marwaanada, heroweynta. wuxuuna furtay baqaar uu ku qaybiyey heroweynta. wuxuuna baqaarka ku qoray nin la odhan jiray Dino. wuxuu bilaabay inuu raadiyo sida uu ku noqon lahaa fanaan. wuxuu soo bilaabay 2014, wuxuuna si toos u soo shaabaxay 2015 iyo 16. balse 2015 bisha 21 waxa uu casuumay asxaabtiisii. markay xalfadda bilaabatay wuxuuse arkay gabadh aad u qurux badan. wuxuuna weydiiyey asxaabtiisa gabadhaas qofka ay tahay. iyadoon dood laga gelin ayaa loo keenay gabadhii. wuxuuna weydiiyey da'da ay jirto gabadhaas, isaga oo taxadar badan ka muujinaya shakhsiyadeeda. isla su-aashaas iyo kabtankii ayaa waxaa duubaya asxaabtiisa qayb ka mid ah. isla habeenkaas muuqaal kale oo xigay ay ka duubeen asxaabta isaga iyo gabadha ayaa waxaa lasoo dhigay social mediaha, gaar ahaan Instagram-ka. waxaana muuqaalkaas Instagram-ka ku arkay gabadha hooyadeed, taas oo kusoo oogtay inay gabadheedu jirto 13 ayna tahay gabarh laga caqli badiyey. nasiib wanaag waxa uu Takashi ku badbaaday muuqaalkii ka horreeyay ee ahaa laga duubay su-aashii iyo jawaabtii gabadha labadoodaba oo ahayd inay jirto 19. halkaasna waxaa kusoo gabagaboobay kiiskiisii. wuxuu jeclaaday Takashi inuu dib ugu laabto iskuulkiisa si uu qaatay shahaadada high schoolka GED, balse imtixaanka dhowr jeer ayuu u fadhiistay uuna ku dhacay. waxayna dadka qaar leeyihiin uu ku baasay. hase ahaatee ilaa haddase ma cadda sida ugu baasay imtixaankiisii high schoolka. ku biirsatanna waxaa lagu eedeeyey mar kale inuu gabar kale ku xadgudbay, taas oo isaga shakhsiyadiisa saameyn ku yeelatay. waxaana lagu xukumay 3 sano inuusan waddanka ka bixi karin iyo 1000 saacadood oo mar kale inuu ka shaqeeyo wadooyinka iyo qashimada. balse markan waa wiil yar lacag haysta, fahmayna sida la isku badbaadiyo. wuxuuna adeegsada looyaradiisa iyo lacagtiisa. wejiga cusub oo muusan wanaagsanayn xaalka. waxa ahayd subax hore ay dhammaatay haysta, waxaana afduubtay 3 nin oo ka tirsan kooxdu isaga uu ka mid ahaa. waxayna geysteen meel wayna jir dileen. waxayna ka dhaceen dahab ku fadhiya 1 milyan iyo lacag kaash oo gaadhaysa 35,000. Takashi dhibka loo geystay wuxuu ku abuurtay kalsooni darro, sidaas ayuuna bannaanka uga istaagay kooxdu isaga uu ka tirsan. dhanka kale wuxuu bilaabay inuu ugaarsado dadkii dhibaatada u geystay iyo dadkii ka dambeeyey. 2018 bishii 6 waxaa la weeraray fanaanka Chief Keef, waxaana lagu weeraray hoteelka uu ka degnaa New York, balse risaastaas wuu ka badbaaday. waxaana lacagtaas bixiyey 69. waxa uu tagay xarunta tuugada wuxuuna geeyey 20,000. waxaana dhiilkaas qaatay Code B, balse xeerka ayaa ah haddii howsha lagu dalay aad uga soo bixi weyso sida loogu talagalay, ugu dambeyn waa inaad lacagta hab soo celisid. Code B ayaa lacagta sidaa ku soo celiyay $10,000. waxa uu wareysi ku sheegay uu bixiyey inuu ka baqo 2 Ilaahay iyo FBI-da. sidaa darteed waxa ay dowladda ka haysaa kiisas aad u tiro badan, taas oo ay dhiil ugula galeen isaga. waxayna u sheegeen haddii uu la shaqayn waayo inay ku xukumi doonaan 47 sano, balse uu noqdo qof qaata dhiilka ah inuu dowladda la shaqeeyo, kaas oo basaasi doona fanaaniinta kale. wareysi kale uu bixiyey ayaa lagu weydiiyey sababta u yahay basaas. wuxuu ku jawaabay, sideen daacad ugu noqdaa qof ku xadgudbay shakhsiyadeeda ee uguna hanjabay hooyaday iyo faamilgeyga.
balse arrinta 69 waxaa dhammaan si gooniya meel uga wada istaagay fanaaniinta kale waxaana uu ka noqday tuka cambaar leh sidaa darteed wuxuu qortay ciidan aad u tiro badan balse dadka qaar waxay leeyihiin waxay shaqaalahan kala dareeri doonaan markii isagu lacagta ka dhammaato yaase badbaadin doona Smoke Dog ayaa leh rufiyaanka waa mid u shaqeeya dowladda halka Icon uu ka duwan yahay dhammaanta fanaaniinta kale wuxuuna leeyahay Takashi kuma eedayn kartaan inuu yahay rufiyaan sababtoo ah kama warhaysaan xaaladda uu ku sugan yahay wuxuuna sheegay isaga oo ka hadlaya shakhsiyadiisa in loodka maanta jira iyo loodkii ka horreeyo isaga uu ka mid ahaa ay kala duwan yihiin wuxuuna sheegay inay lahayn dhaqan iyo sharciyo u gooniya wuxuuna leeyahay haddii aad ku xadgudubtaan una hanjabtaan hooyadiis qiyaas haddii aniga hooyaday aad u hanjabtaan iyo familigayga sideen adinka daacad kugu sidaa darteed su-aalahan ayaa isdaba yaala 69 dhibaatadiisu ma sii jiri doontaa haddayse sii jirto siduu u xallin doonaa gruubka inuu ku laabto ma noqon doontaa mid aad u fudud amnigiisase yaa damaanad qaadi doona barnaamij midkan la mida intaynu ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo